marka ugu horeysa waxaan halkan tacsiib uga diraynaa dhammaan eheladii dadkooda ay ku waxyeeloobeen qaraxii foosha xumaa oo halkan ay ka geysteen arxamanlaawayaashii diinlaawayaasha ah waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo waxaa sidoo kale aan u ducaynaynaa dadkii ku dhaawacmay aan leenahay idinkana ilaahay caafimaad degdega ha idin siiyo waan idin garab taagannahay waxaan u mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo u soo gurmaday dadkii ku waxyeeloobay qaraxaas laga bilaabo gabdhihii iyo wiilashii yaryaraa ee soo dhiibay lacagta yar iyo buskudka iyo kuwii soo dhiibay boqolaalka kun oo dollar iyo kuwii dhiiggooda bixiyey kuwii xooggooda bixiyey kuwii wakhtigooda bixiyey oo isugu jira dhallinyaro culumo dawlad guddi cid walba qof walba oo soomaaliyeed oo gacan ka geysatay qof walba soomaaliyeed oo u soo ducaysay waxaan idin leeyahay anigoo ku hadlaaya dhammaan magaca dawladda oo madaxweynaha anigu aan ugu horrayno waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ilaahay ha idin barakeeyo intaas ka sokow sida culummada ay noo sheegeen kuwii diinlaawayaasha ahaa ee qaraxan geystay iyagu isma qarxiyaan oo waxay soo diraan carruur masaakiimiina carruurtooda ma qarxiyaan oo carruurtooda waxay u dirsadaan iskuullo waxay qarxiyaan carruur islaameed oo ay dhaleen shacab soomaaliyeed iyagoo ah dad ku shaqaysanaya inay ummad soomaaliyeed u baabbi'iyaan shaqay u soo dhiibteen kuwo ajnebi ah marka diinkama shaqeeyaane waxay ka shaqeeyaan dullinnimo dullinnimadaasna shacabka soomaaliyeed way fahmeen meel baana looga soo wada jeestay qaraxaas markii ay geysteen waxay aaminsanaayeen inay tirtiri karaan dawladnimadeenna waxay aaminsanaayeen inay qarannimadeenna hoos u dhigi karaan waxay aaminsanaayeen inay cabsi gelin karaan waxay aaminsanaayeen inay demin karaan nalka yaroo iftiinka ah oo noo baxay waxay aaminsanaayeen inay dunida u sheegi karaan soomaaliya waa meel aan nabad ahayn waxay aaminsanaayeen dadka soomaaliyeed in niyaddooda hoos u dhacday ama ay u dhigi karaan waxaa ilaahay noogu beddelay midnimo waxaa ilaahay noogu beddelay horumar waxaa ilaahay noogu beddelay deeqsinnimo waxaa ilaahay noogu beddelay gacan furnaan waxaa ilaahay noogu beddelay jacayl cusub oo aan dalkeenna jeclaanno waxaa ilaahay noogu beddelay in dadka soomaaliyeed ay meel uga soo wada jeestaan kuwa leh fikirka guracan horumarkii noo bilowday sanadkii la soo dhaafay ayaa ilaa hadda noo socda waxaana rajaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo haddii aan ku soconno sida aan u soconno hadda in dalkani uu noqon doono dalalka ugu horreeya dawladaha afrika mid ka mid a ugu dambayntii waxaan leeyahay dhammaan carruurtii waalidoontood ay ku geeriyoodeen halkan maalintii iyada ahayd waxaan ku amrayaa ama farayaa wasaaradda waxbarashadu in carruurtaas lagala shaqeeyo in kulligood la siiyo waxbarasho lacag la'aana si ay u helaan fursadda ay leeyihiin carruurta kale waxaan codsanaynaa markaa guddigii ka shaqeeyey gurmadka dhallinyaradii nagala shaqaysay gurmadka wasaaradihii ka shaqeeyey gurmadka inay soo gudbiyaan carruurtii waalidiintood halkan ay ku geeriyoodeen magacyadooda si wasaaradda waxbarashadu ay uga caawiso inay helaan waxbarasho lacag la'aana dhallinyarada soomaaliyeed ee halkan isugu timidna waxaan leeyahay dalkani waa dalkiinni idinka ah mustaqbalka ummadda soomaaliyeed u istaaga inaad difaacdiin dalkiinna u istaaga dhisidda qarannimada u istaaga sidaa ku soo celi laheedeen sharaftii karaamada ummadda soomaaliyeed